waxaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya lagu qabtay kulan ballaaran oo tababar loogu soo gabagabeeyay shaqaalaha iyo hawlwadeennada shirkadda Dahabshiil ee dalka Kenya. tababarkaas oo shirkaddu ay siiso shaqaalaha iyo hawlwadeennada laamaha kala gedisan ee gobolada dalka Kenya sanadkiiba hal mar ayaa mid u noqota shaqaalaha aqoon kororsi una fududeysa xirfadahooda shaqo ee ay la wadaagaan macaamiisha ballaaran ee ay shirkaddu leedahay. tababarkan oo ay soo diyaariyaan macallimiin u dhashay dalka Kenya iyo mas'uuliyiinta shirkadda ee dalka Kenya ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda iyo aqoonta guud ee shaqaalaha si ay hadba ula jaan qaadaan isbeddelka marxaladaha kala gedisan ee casriga ee waafaqsan shuruucda caalamiga iyo sharciga dalka Kenya. taasi oo inta uu socdo tababarkaasi lagu qaato casharro muuqaal iyo qaar qoraal la iskuna weydaarsado su'aalo iyo afkaar la xidhiidha hawlahooda shaqo. waxaana mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ka mid Cabdicasiis Cali Maxamed oo madaxa ilaalinta shuruucda caalamiga ee ML ee dalka Kenya, Deeq Cabdilaahi Yaasiin oo ku magac dheer Shaakir isku dubaridaha hawlaha guud ee dalka Kenya, Jamaal Xaaji Maxamuud iyo sidoo kale Axmed Muusa oo mas'uuliyiinta u sarreysa maamulka shirkadda ee dalka Kenya. runtii isbaraarujino oo aynu isu sheegno wixii muhiim ah ee shaqadeena iyo danteena iyo duruufteena u munaasaba ayaan caawa u joognaa. waa taqaanaan competitionka ama tartanku sanad kasta iyo saacad kasta uu isbedelaa, waqtiga ayuu isla bedelaa, duruufaha ayuu isla bedelaa, shuruucda dunida markaa ka jirta oo iyaduna isbedelaysa ayuu runtii isla bedelaa. sida awgeed inaan isbaraarujino ayaan u fadhinaa. And maybe recommending to the management to appreciate from next year those who have learned and implemented what they have learned from the trainings. For those who will not be following whatever the trainings have been teaching them, I think some steps are going to be taken at least to improve you so that you don't repeat the mistakes which have been said here. Kole waxaan jeclay qof walba halkan maanta jooga inuu shay kow mise labo mise saddex wuxuu qof walba faa'iiday. marka anagu wadaanu maamulnahay shaqaalaha waxa weeye mahad baan idinku celinaynaa, si gaar ah ayaan idinku mahadnaqaynaa. Cabdilaahi Cabdi Cali, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Nairobi.